gobolka Mudug ayaa kulamo gooni la qaatay odayaasha maamulka gobolka Mudug galmudug iyo Puntland kulamadan oo la qaatay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Siciid Juxa odayaasha waxgaradka magaalada Gaalkacyo ayaa waxa looga hadlayay sidii loo dhaqan galin lahaa qodobadii laga soo saaray heshiiska ay magaalada Gaalkacyo ku gaareen maamulada galmudug iyo Puntland wasiir Juxa ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn socdaalkiisa uu yahay magaalada Gaalkacyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda soo noqotay ee magaalada Gaalkacyo loona adkay lahaa nabadgelyada magaalada Gaalkacyo fariin in ay dawladda federaalka muhiim u tahay waxna aysan la harayn in nabadgelyo iyo wadajir kama damaysa laga gaaro magaalada Gaalkacyo iyo khilaafaadkeedii soo noqnoqday arintaasi ay tahay mudnaanta koowaad ee dawladda waxa aan Gaalkacyo ka rabnaa ama dadka deegaanka aan ka rabnaana ay tahay Gaalkacyo dadkeedii ay wada jiraan oo horumarsan yihiin oo nabadda ka wada shaqeynayaan wax wada qabsanayaan oo meel fog eegayaan oo Gaalkacyo cusub iyo midnimo cusub iyo dhaqan cusub oo iskaashi ay sameynayaan oo waxaan wax ka weyn ay ku xisaabtameen taa ayaa la fiirinaya waxaan aad uga mahadnaqayaa oo hawsha hordhac ah oo aad u wanaagsan oo ay meesha soo gaarsiiseen oo labada dawladood iyo shacabkeeda aad meel wanaagsan ku soo furteen in dadku isdhex galo nabadda ka wada shaqeeyo dhulka wada daaqo wixii ishu arrimaha oo taaganna iyadana la galo arinta annagana waxay noo tahay mudnaanta koowaad bay noo tahay baan ugu faraxsanahay inaan ku soo aaday iyadoo jawigu intii hore uu ka gedisan yahay oo aad isku meel wax u wadaan inta dhimanna waxaan jecelahay inaanu idin kala qayb qaadano gudoomiyaha gobolka Mudug ee galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan iyo sidoo kale Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayaa dhankooda ka hadlay kulamadii uu wasiirku la qaatay inta uu ku sugnaa koonfurta magaalada Gaalkacyo ee galmudug tixraacayna wada hadaladii soo socday iyo gudiyadii oo suldaan kamid ah oo nagala shaqeynay noo tixraacayna wasiiradii imaaday oo maalmaha hawsha nala waday oo waxa naga go'an nabadda gobolka Mudug inaan soo celino oo ka wada shaqeyno oo daris wanaag iyo walaalnimada lagu wada noolaan jira marna uma dul qaadan karna dhibaatadii ay dadka soo mareen oo ognahay dadkan ilaa 30 sano in ka badan baa dhibaatooyin hayay waxaan ilaahay hortiisa u taaganahay oo aan u dadaalino oo bishaan oo aan u hooyanay inaan helnaa nabad anaga gacnayna ku keysano nabad aan gacmo shisheeye keenin nabad anaga ay naga go'do qulubteena ka timaa haddana waa aragnaa ifafaaleed inuu muuqday waxa ilaahay lagu guuleeyay in hadda dadkii wada daajino xoolahoodii daaqsinta inaan ciidamo isku dhafa sameeyno inaan caawo meel ku wada afureyno oo wasiirka arrimaha gudaha noogu yimid taa waxay ku tusaysaa ifafaale fiican iyo bilow fiican insha Allah waxaan rajaynaynaa masiirka Soomaaliya marar badan meel waxa la yiraahdaa wuxuu ku xiran yahay gobolka Mudug waxaan u taaganahay inaan ka miro dhalinaa go'aankaasi sida xorriyadii iyo Soomaaliya uga bilaabatay gobolka Mudug inaan u taaganahay horena waa u ballan qaadan marar badan haddana waa ballan qaadana inaan la ka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo wafdi hogaaminayo iyo wafuud hore u joogtay oo labada maamul goboleed galmudug iyo Puntland ka tirsan ayaamihii ugu dambeeyay xagga nabadda ka wada shaqeynayay magaalada Gaalkacyo maamulada Puntland iyo galmudug meel fiicanna marahayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajayno noo tabagaliyo arrimahaas ayaa wasiirku nagu yimaan ka wada hadalnay si fiican bayna u dhaceen si gooniya iyo si guudba waa u wada kulannay wasiirada iyo maamulada gobolka kala goonida kala duwan iyo degmooyinka si gaar ah ula kulmay waxay ka wada hadleen danaha iyo shaqooyinka meesha laga wado iyo wax laga rabo oo nabadda ugu horeyso